qoonsanoo ordinaanu nahay war ilaahay inagama dhiin sabab inaga iska dhignay maamul xumadeena muxuu asaboolnimada dhashay 1,230,000 kullu ma waxaan loo baahnayn wax badan bay inoo qaban lahayn kulka wax weeyaan wax meliin waxa weeyaan iimaankii baa inaga dhaawacmay muddadii kordhiskii baa yimid kulkaas goor walba la kordhinaya baarlamaanku waxay ahayd kulku muddadii xilkii ka dhamaado ninka madaxweynaha ee qaban waaya doorashadii inay impeach gareeyaan bay ahayd way ka daayeenoo way ku danaysanayaanoo inay sii joogaan bay doonayaanoo guurtiduna waxay tiraahdaa maxaa goor walba waynu kordhinaa shaqo kale ma hayaan shaqo kale way muddo kordhiskaas waxay iloosan yihiin waxa ay ka dheefaan mushahar ha ahaato wax kale ha ahaato waxay ka dheefaan inuu xaaraan yahay xaaraantuna intay xaaraan kugu jirtana ilaahay cibaado kaama aqbalo kolkaa nin weyn oo salaadu tukanayay la aqbalayo soonkii laga aqbali waayo oo wixii qabanayay laga aqbali waayo waa khasaare weyn baa muxuu ayaa lagu jira kolkaa waxa weeyaan ha ka baxeen xukuumadda iyo baarlamankan jiifa iyo muxuu ahaa guurtidan aan shaqo kaleba aqoonay dhaxaltooyada ku wada joogta waxaan malaynayaa 82 malaali xafad baa ka noolba intii kale way socotay kolkaa waxa weeyaan mar la doortay nima ma jirto kolkaa taas waa sidaa qoladan dalka deganna waxaan leenahay naga baxa oo weliba ingiriisku ha ugu horeeyo isagaa ugu muxuu ahaa ninkii ina siiyey istiqlaalkii ogaa xaalkeena kolkaasaa dowladdan la leeyahay la taga waa tan gaarka laga hayo ee bootika laga xukumo waxa weeyaan waxaan leenahay innagu waxaynu haysanaa xorriyad baynu haysanaa nabadgelyaynu ku joognaa bal kuwa askartu ciidamadu caalamka u soo wada diray ayay ku leeyihiin caqli xumadooda ku biir waxay weeyaan aan wadalayn soo gala wax soconaysa maahee madaxdeenu iminka dee madax sharci ku joogtaaba ma jirtee baarlamaanka wuu baabaay waqtigiisa uu dhammaaday xukuumaddii wuu dhammaaday waqtigiisii waxayba sharci kuma joogaan mudday kordhinayaan haddana baarlamaanka 12 sannadood sharcigii lagu dooranayay samaysan kari waayey ayaa maanta inuu hor fadhiyo muxuu ahaa kolka waxa weeyaan waa khasaaro weyn baynu ku jiraa dhalinyar iyo waayeelba wixii dalkan danaynaya maantay dhib yar tahay inaynu nidhaahno naga taga gaaladana naga baxaan leenahay hadday bixi waayaan tallaabaynu ka qaadi asalaamu calaykum waraxmatullah